kala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Asmara waxa uu la kulmay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar. admiraalka ayaa sheegay in fursad u ahayd la kulanka madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in uu kala kulmay soo dhaweyn fiican isagoo ugu baaqay shacabka Soomaalida in dawladda ay garab istaagaan. madaxweynaha Soomaaliya oo wafdi rasmi ah halkan ku yimid runtii waanu kulanay waana markii ugu horeysay madaxweynaha aanu kulanay challenge fiican bayna runtii noo ahayd arintaasi madaxweynuhu si fiican buu ii soo dhaweeyay waqtigii aanu isu helayna waxaanu ka wada hadalnay ummadda Soomaaliya sidii midnimadeeda loo xoojin lahaa ama xoog loo saari lahaa shacbiga Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa midnimadooda inay xoojiyaan midnimadooda iyo Soomaalinimadooda inay xoojiyaan Soomaali dawladnimo la'aan ma fiicna dawladnimo la'aan wax loo gaari maayo dawladda Soomaaliyeed in la xoojiyo midnimadeedana in la xoojiyo wada jirka ummadda Soomaaliyeedna in la xoojiyo dawladna ma socon karto shacbi la'aan shacbina ma jiri karayo dawlad la'aan shacbigu waa inuu dawladda taageero midnimadiisana waa inuu xoojiyo dawladdu inay guuleysato waa inuu shacbiga ku dadaalo dawladdu waa inay ku dadaasho shacbigeeda siday wada toosan iyo siyaasad toosan ugu hogaamin lahayd waa inay dawladdu ku dadaasho وين كده داش مركل لبضع أريمات لبضع أريمات كلام مارمان ويجي شعبي يدولد شعبي وينه دولد ستغيره دولدنا وينه سياسة في عنه حكيمة شعبي يسكون أمره. مدحونا فرماجة يا أنتي وبوقشة الرسمي وكوتشو دالك إريتريا وحا الله كل مي قاركم من الصومالي ده كله الهالكاس كواسو مدحونه وبلان قاضي إن دولده يصير ولا صعدون تقربه هذا. السياسة يحرير كأود بالعودة دولدها الصومالية إريتريا ayaa u muuqda mid waxtar badan u yeelan doona arrimaha gobolka gaar ahaan halka labada dal ay kaga yeelan qaaradda Afrika oo meel muhiim ah labada madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigta wadankan Sheikh Afwerki ayaa muujiyay sida dhabaanshaha ay uga go'an tahay in shucuubta labada dal ay noqdaan kuwo iskaashi dhab ah oo dhaxmaro oo dhinacyada dhaqaalaha iyo waliba wax soo saarka ah. Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay arrimaha gobolka gaar ahaan bariga iyo geeska Afrika ku wajahaysay siyaasad furfuran oo ku dhisan dawladaag iyo horumar. Kahor inta uu madaxweyne Farmaajo ka soo ambabixin magaalada Asmara ee dalka Eritrea ayaa waxa kulan laba geesood uu la qaatay madaxweyne Siyaasa Afwerki. labada madaxweyne ayaa qalinka ku wada duugay iskaashi ka yeeshaan arrimaha dhaqaalaha difaaca iyo xiriir adag oo dhexmara shacabka labada dal. dawladda Eritrea ayaa sheegtay in Soomaaliya ay garab istaagi doonto iyadoo tilmaantay xushmadda dhuleed iyo midda madaxbanaani ee u hayso jamhuuriyadda Soomaaliya sida lagu muujiyay warmurtiyeed laga soo saaray wada hadallada labada madaxweyne oo warbaahintu u akhriyay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle. waxaan rabaa shirkan jiraad uu ku saabsan yahay booqashadii ugu dambeysay wafdi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan xubin ka ahaa aan ku tagnay dalka Eritrea booqashada oo qaad 3 maalmood maalinka Sabtida laga soo bilaabo Axad iyo maanta Isniin ka soo laabanay runtii dalkaas waxa uu ahaa dal shacbigiisa iyo shacabka Soomaaliya xiriir sooyaal ah oo fac weyn oo ka dhaxeeyay xiriir sooyaal ah oo halgan ah oo ka dhaxeeyay wadaago way aragnimada isticmaalka iyo iska xoreyntiisa isgarabsi oo ka dhaxeeyay oo dawladda Soomaaliya ka ay mug iyo macno leh dawladda Soomaaliya ka qaateen xornimo gaaridii dalka Eritrea wayna xasuusan yihiin hoggaankooduna waa xasuusan yahay iyaguna marar badan oo xaaladda Soomaaliya akirneed markay gobonimada qaateen ka bacdi aad u rasafteen isgarabsiga dal oo ka dhaxeeyay ayaan tagnay aad iyo aad xiiso badan ayaan ku soo dhaweeyay waa runtiina waxay noo sameeyeen waxay ahayd soo dhaweyn aan caadi ahayn waxa xusid mudan dalka goboladiisa ayaan la ku soo wareejiyay tuulooyinkiisa rogihiisa taariikhiga ah kuwa wax soo saarka ugu dambeyntiina waxa ka soo baxay warmurtiyeedkaasi waxa uu ku saabsanaa dhowr qodob oo kamid ah waxyaabihii la isla soo qaaday ama la isku afkartay ama la isla meel dhigay waxa uu horeysay ka bacdi markii laga hadlay xiriirka qotada dheer ee labada dal u dhaxeeya iyo meesha laga hiigsanayo in maadaama Soomaaliya ay ku taalo meel istiraatiiji ah oo aad iyo aad muhiim uga ah halbowlayaasha dhaqaalaha iyo istiraatiijiyaadka isla markaana mowqaca istiraatiijiga ama istiraatiijiyada ay ku taalo culays badan u keenay marka qaarkood
iyadoo ay keenayeen damaca dibadda ka imaanayo iyo khilaafaad gudaha dowladda Eritrea inay Soomaaliya ku garab taagan tahay ilaalinta madax bannaanideeda midnimada dhulkeeda gobonnimada iyo inaan la faragelin qodob kale waxa uu ahaa dowladda Soomaaliya iyo dalka Eritrea inay iska kaashadaan xagga dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada waxbarashada amniga iyo difaaca qodobka xiga waxa uu ahaa bas saddexaad in labada dal ay isdhaafsadaan xiriir diblomaasi oo safiiro ama safaarado labada dhinac ah midba midka kale dalkiisa uu geeyay waxa xusid badan dalka Eritrea wuxuu gobonnimada qaatay intii Soomaaliya dhibaatooyinka sagaashamaadkii burburka marka uu ka jira marka safaaradda Soomaaliya ma aanay jirin safaaradda Eritrea oo Muqdisho joogta ma aanay jirin laakiin waxa hoos laga wada xariiqay oo go'aan heer madaxweyne ah uu gaaray in safaaradaha la furo ugu dambeyntiina labada dal inay dadaal aad iyo aad u xoogan u galaan sidii nabadda geeska Afrika ay ugu fidi lahayd la isu kaashan lahaa dhaqaalaha la iska kaashan lahaa horumarka la iska kaashan lahaa loogana qayb qaadan lahaa in khilaafaadkii iyo colaadihii geeska Afrika ka jiray ay noqdaan wax gadaal loo fiiriyo oo laga gudbay arrimaha sidaas ay ahaayeen runtii aad iyo aad wafdiga dowladda ula dhacsanaa madaxweynuhu hogaaminayay heerka soo dhaweynta iyo qadiyadaha laga hadlay marka nuxurka warmurtiyeedka sidaa uu ahaa